واجزم بأن أولا مما يجيب معرفة وفيه خلف منتصب. halkani waa xarunta weyn ee Daarul Macrifa ee magaalada Gaalkacyo. Waa xarun fac weyn oo qadiimi ah isla markaana loo asteeyay looguna talagalay dhaqan toosinta. Iyadoo ardayga marka la keeno halkan ama uu ku soo biiro loo sameeyo wacyigelin joogto ah, waxbarasho tayo sare leh oo isku jirta diin iyo maadiba. Markana waxaan goobjoog ka nahay bandhig aqooneed ardayda si joogto ah lagu qabto 3 biloodba mar. iyadoo ay ka soo qayb galeen culimada kala duwan ayaa ardayda gashay kaalmaha hore bandhigan ama tartankan la siiyay hadiyado lagu dhiirigelinayo. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله على النبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد فأرشد الخلق لدين حقيب بالسيف وآل محمد العقيب برسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم اليعتام لكن من التطويل قلت الهمام فصار انتصار الملتزم وهذه أرجوسة لغبتها جوارة التوحيد غلبته والله أرجو في قبول النافعة بها مريد فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف قد وجب لله والجايس والمتانعة ومثل دار الرسل كل من قلد في التوحيد إنعمه التجديد ففي بعض القوم يحكي غلفا وبعض المغازي كذبا فقال إن يجزم بقول الخير واجزم بأن أولا مما يجيب معرفة وفيه خلف منتصب. فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به وكل ما جسى عليه عدم عليه قلعا يستحيل قدمه فصار الإمام بالتصديق ونطق في فقيل شرطك العمل وقيل بل بالعمل مثال هذا الحاج والصلاة قد الصيام galabta waxaan joognaa markaska Daarul Macrifa waa markas fac weyn sida hadda culimada ay idin sheegeen 10 sano iyo wax la jira ayuu furan yahay inta waxa lagu dhigahayay diinta islaamka haday tahay quraankii oo aasaaska ahaa iyo haday tahay kutubta cilmiga ahayd akhlaaqda diiniga ah dadka maaragtay xoogaa weecday dadka shaydaanku uu duufsaday oo gaalooyinka isku ekeysiyay dad fara badan oo waxa weeye wadadii xaq ahayd ka leexday ayaa markaskan wuxuu sabab u noqday inay dib ugu soo laabtaan ilaa ay gaaraan inay ummad hogaamiyaan waxaan ka warqabaa dad badan ayaa hadda waxay dhigaan dugsi qaarkood kitaab akhriya oo xaqiiqo ah oo markaskaas ka baxay cibaadana loo abuuray cibaadadiin maxay u baahan tahay camal bay u baahan tahay camalkii cilmigii ina baratid ku camal fashid baa laga rabaa qof ilaahay ku toosan wadadii ilaahay ka rabo ku toosan lamana soo xiro lamana maago ama waa caas waalidiin dadka xarumaha dhaqan celiska ama daaru tarbiyada la keeno laba qaybood weey qof xagga dhimirka laga haysto oo caafimaadkiisa la rabo in lagu dayteeyo kiniiniyaal lagu siiyo caafimaadkiisa in lagu la tacaalo la rabo waa la keenaa waxa kale oo la keenaa qof akhlaaqdi diiniga ka weecday qof toosan oo ilaahay yaqaan oo rasuulkiisa ku xiran oo aan caas waalidiin ahayn baari ah labadiisi waalid baari u ah in la soo qabta mustaxiil weey marka waxaan idin leeyahay ikhwaani fillah xogaagan yarka waa tacsiir aakhire waxa ka jirta silsilado naar aakhire ka jira qofka ilaahay caasiya ilaahay malaa'ikta wuxuu leeyahay khuduuhu faqulluhu thumma al-jahiima salluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhiraacan faslukuhu وتنا هذا وحوم معهن سلسلة ناروي ملائكة قبطة حرحرة سلسلة تضباط تنظرون قلية أفكا قلية دبضة لقى بحين هاي أيضا نار قحميس
waa qaybteennii su'aalo weydiinta ee markiska daaru macrifa ardayga u horeeya ayaa hadda su'aalaynaa maxamed qorone baashi waxaa la rabaa inaad sheegtay su'aasha ah arkaanta ay waajib tahay in lagu xasilo salaada arkaanteeda ka mid ah arkaamaha salaada arkaanta la rabo in lagu xasilo inta ay tahay iyo wax yihiin 4 wey arabka iyo walaasdaal iyo sujuud iyo fadhi loo sujuudo dhexeeya su'aasha labaad oo lagu weydiinayo waxa weeye soomka waajibka meeqa arkaan ayuu leeyahay 2 wey النية الليلة كل يوم من رمضان من دلال إمساك عن المفطر su-aasha saddexaad waxa weeye waa naxwe waxaa icraabaysaa aayadda qur-aanka ah inna badsha rabbika la shadiid إن حرف التوكيد والنص متصل من اسم الترفع والقوارع بطشة اسم إن منصوب علامة نصب فتحة دائرة في آخره بطشة مضاف ربك مضاف إليه مجرور علامة جر كسر الدائرة في آخره مجرور علامة جر كسر الدائرة في آخره ربك مضاف والكاف مضاف إليه مبني على فتح في محل جر الشديد اللام لم يتداي شديد قبر إن مرفوع علامة رفع الضم الدائرة في آخره شديد اللام لم يتداي شديد قبر إن مرفوع علامة رفع الضم الدائرة في آخره ardayga labaad waxaa sheegtaa sakada waajibitaankeeda meeqa shardi ayay leedahay 6 لحوي الإسلام والحرية وملك التام والنصاب ومجيء الحول وصوم الماشية waxaa kaloo noo sheegtaa xajka meeqa arkaana ayuu leeyahay 6 لحوي النية الوقوف بعرف والضواف والسعي والحلق والترتيب booraysiga arkaantiisa waa meeqa arkaan شنوي ayaa imka kala sheeg الأول نقل التراوي الثاني مشكلة النية مسك سدعاد مسؤول وجهي مسك أفراد مسؤول يديني معلومة فرقين مسك شنا ترتيبي ficilka mujaradka aqsaamtiisa waa meeqa لوي رباعي ثلاثي rubaaciga wasankiisa sheeg رباعي فعل لوي ayee thulaathiga awsaantiisana سدحوي فعل بفتح العين وفعل بكسر العين وفعل بضم العين hadda waxaa weydiinaynaa ardayga afaraad Saciid Cabdiraxmaan Maxamed waxaa sheegtaa najaasada meeqay u qaybsantaa نجاسة وحي قيمتها 3 قيبات مقلدة مخففة متوسطة icraabka meequu u qaybsantaa عراب كوحو قيب اسمها 4 قيبات 4 أفروي رفعه ينصبه يقفضه يجسمه Saalax Nuur Salaad imise meelood ayaa la suneynayaa gacmaha in la kor yeelo salaada dhexdeeda 4 أفر مواد عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأولي bada meeqa calaamo ayay leedahay 5 علامة الفتحة والألف والكسرة والياء واحد في النون ugu horeyn anoo ku hadlaya afka maamulka markaskan daanu macrifa waxaan u mahad celinayaa culimada nagala soo qayb gashay bandhig cilmiyeedka aan meeshan ku qabanayn markaskan daanu macrifa oo bandhig cilmiyeed aan ku qabanay bandhig cilmiyeedkaasoo diini iyo maadabi intaba isugu jira bille iyo isbuucle iyo 3 bilood heerar badan buu leeyahay culimada nagala soo qayb gashay waa mahadsan yihiin aruntan waa markas dhaqan celin weeye waxaana lagu baraa dadka diini iyo maadi intaba علومta kala duwan shariicada islaamka iyo quraanka intaba ardada waa dhiirigelinaa markasta tartan baa u qabanaa hadiyaan guddoonsiinaa waaweyn iyo yaryar intaba waa lagu qabtaa xarunta markaskan daanu macrifa wuxuuna ku yaalaa aaga durdur suuqa geela meel u dhow wax badan iyo muddo aan yareen ilaa 10 sano bay meeshaan furan tahay dad badan oo markaskan ka soo baxo ilaahay irshaadiyo hanuuniyay baa dhooban وعرب معمولة يكو إلهي توسي انتو وكو تشيران